markale iyo dagaal looga baqayo Boosaaso dani oo jahawareer lagu riday General Diano oo cadeeyay go'aankiisa iyo Imaaraadka oo magaaladaasi laga burinayo sheergareeya kuna soo dhawaada warbixinteena subaxnimo ee galwareed saakay oo Arbaca waxaan ku soo koobaynaa jawiga Boosaaso oo xalay mar kale mid dagaal noqday waraaqado ay soo saareen odayaasha dhaqanka ee xagga loogu yaqaano isimada saacadaha adag ee dani loo qabtay in uu markaa cadeeyo raaligelinta ciidamada Puntland ee BSF iyo xogta hub saakay salaadii magaalada la geliyay balse inta aanan faahfaahinta guda galin sheergareeya muuqaalka oo asxaabtiina la wadaaga aynu ku bilowno waxa cakiran magaalada Boosaaso xaalado adag ayay mar kale wajahaysaa kadib markii odayaasha iyo salaadiinta dhaqanka ee Puntland ay soo saareen go'aamo cusub qaar kamid ah go'aamadaasi waxa ay u muuqdaan mid aad u adag uusan qaadan karin Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland qaar kamid ah isimada Puntland ayaa go'aamo ka soo saaray xalinta xiisada ka taagan Boosaaso iyo waliba khilaafka ka taagan hoggaanka BSF iyo waliba madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani isimada ayaa soo jeediyay in gogol dib u heshiisiin ah uu madaxweynaha dhigo saraakiisha ciidamada BSF iyo waliba mas'uuliyiinta hogaaminaysay ciidanka oo markaa iyagu ku dagaalamay Boosaaso in hay'adda BSF ay sideeda ahaato agaasimaheeduna uu ahaado sareeya guute Maxamuud Cismaan Diano kana shaqeeyo dib u hagaajinta tayaynta iyo dib u dhiska ciidanka iyo waliba in ciidanku haatan ay noqdeen mid kala firxaday loona baahan yahay in la isku soo celiyo lana ilaaliyo difaaca Puntland in dawladda Puntland ay ka laabato heshiiska dekada Boosaaso ee DP World isla markaana heshiiskaasi ay ismadu ku tilmaameen in wax dan ah uusan u haynin shacbiga Puntland sidoo kale waxa ay amreen oo qoraalkooda ku xusnaa in dekada Boosaaso boqolkiiba 17 loo baahan yahay in dakhliga la geliyo Boosaaso isla markaana uu ahaado dakhligaasi mid kaafiya shacbiga magaalada Boosaaso arintaasi waxay u muuqataa mid aad u adag danina waxa markaa uu wajahayaa xaalad aad u adag su'aasha la isweydiinayo waxa ay tahay dani ma aqbali doonaa warka ka soo yeeray odayaasha dhaqanka ee Puntland si kastaba magaalada Boosaaso dhiig badan ayaa ku daatay xaalad adag ayay gashay qax iyo waliba barakac aad u daran ayay la kulantay waxana haatan ay u baahan tahay in nabad iyo xasilooni loo muujiyo shacbiga isla markaana la dijiyo xasaradaha taagan madaxtooyada Puntland waxa iminka markaa ku qasban tahay in ay dhageysato warka ka soo baxay odayaasha dhaqanka laakiinse waxa su'aal la gelinayaa Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ma ogolaan doona go'aanka odayaasha dhaqanka si kastoo ay ahaataba xaalku haatan waa uu adag yahay waana uu ka duwan yahay sidii hore cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada Boosaaso taasi oo ah in mar kale uu dagaal ka qarxo isla markaana Dani uu ku gacan seero hadalkii ka soo yeeray odayaasha dhaqanka dhibaatadu waa ay sii badanaysaa xaalku waa uu sii xumaanayaa waxa la galayaa qalqal iyo waliba barakac laakiinse isimada waxa ay dadaal xoogan gelinayaan in arintaasi ay meel marto isla markaana laga shaqeeyo nabadda xasiloonida Puntland sidoo kale odayaasha dhaqanka waxa ay ku baaqeen in shacbiga Puntland guud ahaan in ay ka shaqeeyaan nabadda isla markaana ay muhiim tahay in la ilaaliyo shuruucda u yaala Puntland magaalada Boosaaso maalmaha soo socda waxa ay martin doontaa xaalada kala duwan nabad ama in markaa uu dagaal ka qarxo lagu kala barakaco dagaalkaasina waxa uu noqon doonaa mid taariikhda u gala Saciid Cabdullaahi Dani mana muuqato in uu ogolaan doono باقي كسو يري odayaasha dhaqanka falanqayaasha dhinaca siyaasadda waxa ay tilmaamayaan in arinkan
uu yahay arin culus isla markaana madaxtooyada Puntland ay ku adkaan doonto go'aanka ay qaadan lahaayeen. haddaba si kasta iyo xaal walba marka la eego xaalka Puntland aad ayuu kacsan yahay, shacbiga dareenkooduna waa mid kacsan. saaxiibadeena qaaliga ah, shargareeya muuqaalka, like saara, asxaabtiina la wadaaga. sideed u aragtaan hadalkii ka soo yeeray isimada Puntland? Saciid Cabdullaahi Dani ma fulin doonaa amarkaasi iyo weliba waraaqdii ay soo saareen? aragtidiina hoos noogu reeba. wabilaahi tawfiiq.